جزا الله فضيلة الشيخ كلمتك كلو حاسكالة قدوميها علماء الصوماليات شيخ بشير أحمد صلاة تفضل مشكور هل دقيقة هل سكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاسكدب وكلمة اسكاكوبان ما هاد علمتا أيامكم بالله بعد حمد الله تعالى وما هاد علمنا إنه أنصار السنة هي رنتي أباب كان في عن هي شركة في عن قبتين هي علماء صو حاضرتي هي أنت اللي جيسنا يسي مدك على وأويسيس شيخ عبد الرزاق أنا waxaan ku tashanay إن شاء الله تعالى مؤتمرka soo socda ee Ansaar Sunnah inuu ka dhaco magaalada Muqdisho إن شاء الله تعالى marka soona duceeyo hadii la yiraahdo إن شاء الله تعالى taas waa midaas tan kale أنا اسمعني يا أنا سجيسنو تنكلم وحويه runtii muxaadarooyin badan baa ka baxay meeshan oo kulligood faa'iido leh muxaadarooyinkii su'aalo dabcan baa ka imaanaya marka su'aalaha qaarkood baa jira oo runtii loo baahnaa in xoga laga jawaabo oo la xiriiray dacwadii iyo shaqadii la soo waday iyo meesha ku dambayso iyo waxa hadda noo yaala culimada aniga da'dayda ah wali waan shaqaynaynaa alxamdulillaah tacaala laakiin shaqada culayskeeda ragga dhalinyarada ah oo ducaada ayay saaran tahay annaga waqtigeennii wixii aan dhaqaanay iyo wixii waqtigaas loo baahnaa waxbaan ka soo qabannay hadda waxa loo baahan yahay iyo hadda waxa yaalla ragga ee dhalinyarada ah ayay horta u taallaa inteeda badan annaguna wixii talaa iyo tusaalayn ah iyo taageeraha insha allah diyaar baa lanahay waxa aad laga walwalahayay waxbaa daciifahaya waxbaa sii daciifahaya sidii hore lama aha waa sax maxaa yeelay wax kasta waxay ku bilowdaan xamaas bay ku bilowdaan kadibna xoogaa ayay iska nastaan markana waa laba kacleeyaan marka laba kacleyntiina waa laydinka sugayaa insha allahu tacaala taas waa midaas tan kale waxaa hadda ka hor aniga waan sheegay ummaddan in loo fakaray u baahan tahay in ummaddan sidii looga saari lahaa dhibaatooyinka kala nooc ah hadday tahay siyaasad xumida hadday tahay dhaqaale xumida hadday tahay khilaafaadka ummaddan in loo fakaray u baahan tahay marka niman waxaa jira dhalinyaro ah oo isxil qaamay aqoon-yahano oo wadaada oo soo bandhigay barnaamij ummadda muslimka Soomaaliyeed looga saari karo faqriga iyo baahida kaasoo la yiraaho kobciye ayaa la yiraahaa waa la kulanay Muqdisho aan ku aragnay hadda ka horna waa sheegay waa la kulanay waa dhageysanay runtii barnaamij xiiso leh oo ummadda muslimka anfacaya dad fiican ay wadaan ayuu yahay marka barnaamijkaas in la ogaado waxa uu yahay oo maaragtay xogtiisa la ogaado sidii loo qaban lahaa lagu dadaalo ummadda muslimka Soomaaliyeed waxa haystaa diin la'aan kaliya maahane ummadda baahi ay u baahan tahay gaalo ay u baahan tahay oo siyaasiyiintu gaalo u baahan yihiin oo dadkii gaalo daba joogaan oo gaalo loo qaxayo oo loo tahriibayo oo qawaaniintooda la keenayo ayaana haysata marka ummadda in la xoreeyo diin ahaan baa la rabaa ummadda in la xoreeyo dhaqaale ahaanna waa loo baahan yahay marka barnaamijkaas oo runtii aan kula kulanay aan xamar oo naloo soo bandhigana inaan idin soo gaarsiino fartiintiisa waa nala soo faray marka waa idin soo gaarsiinay barnaamijka la yiraahdo kobciye oo dhaqaale samayn ah oo dadka muslimka Soomaaliyeed waa fikrad la isleeyahay waxbay tali kartaa diintana waafaqsan dad fiican ay wadaan annaga inaan idin soo gaarsiino oo fartiinta aan maqashaana waa xilna saaran إلهي سبحانه وتعالى محاضرات كان قاضني يدروس أن رجسني الله نجوا أنفعه وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.